asbaabaha keena dhagaxaanta quumanka ama wax loo yaqaan tonsil stones iyo sida loo nadiifiyo. dhagaxaanta quumanka waa wax yar oo cadaan xigeen ah waxayna ku sameysmaan gudaha ama quumanka korkooda. quumanka waxay ka mid yihiin goobaha jirka dhagaxaantu ay ka sameysmaan sida keliyaha iyo xameetida oo kale. quumanku waa qanjir alle ku abuuray cunaha kaasoo loogu talagalay inay ka difaacaan ama gacan ay ka geystaan difaaca jirka, waxayna la dagaalamaan wixii caabuq keeni kara oo jirka afka ka soo gala. waxaa caadi ah in dadka la nool dhagaxaanta quumanka aysan war u hayn inay qabaan iyo in kale. dhagaxaanta quumanka ma ahan kuwo fudud in loo arko, waxay noqon karaan dhagaxaan yaryar iyo kuwo waaweyn. dhagaxaanta quumanka inta badan ma sababaan xaalado caafimaad daro oo khatar ah, hase yeeshee mararka qaar waxay sababi karaan in quumanka ay bararaan. maxaa sababa dhagaxaanta quumanka? quumanka waxaa ku yaala marino iyo gododo yaryar, haraadiga sida unugyada dhintay, xaliyada iyo cunnada ayaa ku xayirma gododada yaryar. bakteeriyada iyo fungiga ayaa quuta haraadigaasi, waxayna sababi karaan inuu afka muddo kadib haraadigii ayaa adkaada kadibna isu bedela dhagaxaan yaryar. dadka qaar waxay yeelan karaan hal dhagax halka dadka kalena ay yeelan karaan dhagaxaan tiro badan. waxyaabaha sababi kara dhagaxaanta waxaa ka mid ah nadaafadda afka oo si fiican loogu dadaalin, quumanka oo waaweyn noqda, sidoo kale dhibaatooyin xagga cuntada ka imaada. sidoo kale waxyaabaha sababi kara waxaa ka mid ah quumanka oo infekshanadooda joogto noqdaan. astaamaha dhagaxaanta quumanka. inkastoo dhagaxaanta qaar ay noqon karaan kuwa aan si fudud loo arkin, waxay guud ahaan sababi karaan astaamo la dareemi karo. waxaana ka mid astaamahaas neefta oo urta, dhuun xanuun, laqidda cuntooyinka oo aad kuu dhibta, dhegaha oo infekshan kaaga dhaco ama ku xanuuna, neeftaada oo soo shiirta ama soo urta, dhuun xanuun kugu dhaca, laqidda oo aad kugu dhibtoota waxyaabaha cuntooyinka aad cunaysid inaad kugu dhibtooto laqitaankeeda, sidoo kale dhegaha oo infekshan kaaga dhaco ama dhega xanuun aad isku aragto tirada badan, sidoo kale qufac joogto ah, sidoo kale quumanka oo ziyaado noqda bararkooda, sidoo kale waxyaabaha cadcad ama jaallo ah ama sidoo kale waxyaabo cadcad ama jaallo ah oo huruud u eg inay ku sameysmaan quumankaada ama ay kaa soo baxaan. dhagaxaanta yaryar ayaa ah kuwa ugu caansan. inta badan ma sababaan waxa astaan ah, laakiin markii dhowr xabo ay sameysmaan ama kuwa waaweyn ay noqdaan waxay keeni karaan astaamaha aan kor ku soo xusnay. sidee looga hortagaa dhagaxaanta ku sameysma quumanka? dhagaxaanta quumanka waa kuwa si joogto ah ku sameysmi kara. nasiib wanaag waxaa jira tallaabooyin la qaadi karo si looga hortago inay sameysmaan. waxaana ka mid ah tallaabooyinkaasi inuu qofku dabeecad ka dhigto ama uu joogteeyo nadaafadda afka iyo nadiifinta qeybaha gadaal ee carabka marka uu qofka cadiyeysanayo. 2. joojinta sigaar cabiddu. haddii qofku uu balwad uu leeyahay waa inuu joojiyaa si uu ugu nabad galo in quumankiisa uu dhagaxaan ay ku sameysmaan. sidoo kale inuu ku luqluqdo qofka biyo diiran oo cusbaysan ayadoo la gaarsiinaya hareeraha dalqada. sidoo kale waa inuu joogteeyaa cabidda biyo ku filan, waa inuu biyo badan cabaa, biyahaasoo ka saacidaya in uu ka hortago inay ku sameysmaan quumanka dhagaxaan. dhibaatooyinka ka dhalan kara. inkastoo dhibaatooyin la xiriira dhagaxaanta aysan ahayn kuwo badan, hase yeeshee waxaa macquul ah in dhibaatooyinka uu qofka la soo dirso. dhibaatooyinka ugu halista badan ayaa ah in infekshan uu ku dhaco gudaha quumanka. quumanka waaweyn waxay dhaawici karaan gudaha caadiga ah ee quumanka. arrintan ayaa horseedi karta in barar daran uu qofku uu ku yimaado iyadoo infekshanka ku dhacayo quumanka. talo in lagu soo saaro dhagaxyadan waxyaabaha adag sida cadayga ama burushka lagu cadiyeysto ayaa ah arrin aad loogu deerinayo, sababtoo ah quumanka waxay ka samaysan yihiin nudo aad u jilicsan. sidaa darteed
ومهم إن الآن لا استعمالين وحيابها سي دابعي كرا هدي أد كبدين ويسيد واحد استعمالي كرتا سوف خوين سي أد وصو ترترتid خومنكا هدي ديباتوين كاسي أد درينتid إنay kasii darayaan booqo fadlan dhakhtar ku takhasustay cudurka cunaha dhegaha iyo sanka si xaaladaadu uu kula tacaalo aad baad u mahadsantahay muuqaalkan haddaad nala dhamaysatay fadlan waxaan kaa codsanayaa inaad asxaabta sii gaarsiiso haddaad noogu cusub tahay subscribe noo saarto gambaleelka aad furato si fariimaha caafimaad iyo talooyinka caafimaad